بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أولا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد التحية runtii maanta oo ah 22 November marka loo fiiriyo waa maalintii macallimiinta Soomaaliyeed. inta aanan barnaamijkayga gudigalin marka hore waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa ardayda quruxda badan ee dugsiga hoose dhexe sare ee Salaama qeybaheedii kala duwan dhammaantooda oo door weyn ka qaatay siday u qabsoomi lahayd xafladani quruxda badan oo ay soo agaasimeen oo ay waqti soo geliyeen oo ay juhdi badan soo geliyeen. waxaan leeyahay dhammaantiinaan waad ku mahadsantihiin sida quruxda badan oo aad u soo agaasimteen xafladani quruxda badan. marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa maamulka Facweyn ee dugsiga sare Ustaad Sacad Xitir Cumar oo isagana kaalin weyn iyo weliba door weyn ka ciyaaray sidii uu taageeri lahaa ardaydan soo awaabushay oo iskoodii isku soo awaabulay si ay u soo bandhigi lahaayeen maalintan weyn oo ah maalinta macallimiinta. waxaan leeyahay maamule waad ku mahadsan tahay sida quruxda badan ee doorka weyn aad uga qaadatay qabsoomida xafladani quruxda badan. marka saddexaad waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan macallimiinta ka howlgala iskuulka dugsiga hoose sare ee Salaama qeybahoodii kala duwan hadday ahaan lahaayeen kuwa wiilasha iyo weliba gabdhaha dhammaantoodii iyagoo isku duwan. waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin taageerada aad u muujiseen ardayda iyaga isxilqaamay oo iyaga go'aansaday maalintan inay weyneeyaan oo ay u weyneeyaan macallimiintoodii sharafta badan leh. waxaan leeyahay macallimiinta iyagana waad ku mahadsantihiin doorka weyn iyo kaalinta weyn aad ka qaadateen siday u qabsoomi lahayd xafladani quruxda badan. runtii ma qiyaasi karo sida aan u faraxsanahay sababtoo ah waa maalin weyn oo u baahan in la muujiyo. waa maalin ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan macallimiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay aad u faraxsan yihiin maanta oo kale. runtii waxaan ognahay macallinka inuu yahay warshad. waxaan ognahay macallinka inuu yahay ifiye. waxaan ognahay macallinka inuu yahay kalkaaliye. waxaan ognahay macallinka inuu yahay kobciye. inta aanu soo sheegnay oo sifaadkaas oo dhan waxay u sugnaadeen macallinka ay u sugnaadeen sababtoo ah hadduusan macallin jiri lahayn aqoon-yahaan maanta ma jiri lahayn. waad dareemi kartaa maanta bulshada reerka ay ka taagan tahay aqoonta marka loo fiiriyo waxa soo saaray oo reerkaan soo gaarsiiyey waa macallimiin. macallinka hadduusan jiri lahayn aqoon ma jiri lahayn. sidaa darteed macallinkaas wuxuu u baahan yahay xishmad. macallinkaas wuxuu u baahan yahay in la taageero. macallinkaas wuxuu u baahan yahay in la iska ilaaliyo in aflagaada iyo waxyaabaha halmaalaha loo geysto. waxaan ognahay macallimiintu in ay ku shaqeeyaan daruufo. waxaan ognahay macallimiintu inaysan qaadan mushaar ku filan. waxaan ognahay macallimiintu inay la kulmaan dhibaato marka ardaydu ay wax barayaan. isagoo intaas og ayuu haddana doorbiday inuu u shaqeeyo bulshada Soomaaliyeed meel kastoo ay dunida ka joogaan. waxaan leeyahay macallimiinta Soomaaliyeed waad ku mahadsantihiin dadaalka aad bulshadiina u haysaan meel kastoo aad dunida ka joogaan. macallimow waxaan leeyahay waad ku mahadsan tahay dadaalkiina weyn oo aad bulshada u haysaan. waxaan ognahay hadduusan jiri lahayn macallinka inuusan madaxweyne jiri lahayn. waxaan ognahay
hadduusan jiri lahayn macalinka inuu wasiir uusan jiri lahayn waxaan ognahay hadduusan macalin jiri lahayn inuusan xildhibaan jiri lahayn inta aanu soo sheegnay oo dhan waxa soo saaray oo bannaanka keenay oo iftiinkan keenay waa macalinka doorkaas weyn ayuu leeyahay ma ahan macalinka awaankiisii waa halkan lagu soo koobi karo ma ahan macalinku waa aabbihii saddexaad hooyada iyo aabbaha hooyadu hadday guriga kaa soo dhisto raashinkii iyo cuntadii iyo nadiifintii nadaafadii markay kaa soo dhisto aabbahana dhaqaalihii uu bixiyo macalinka waa kan saddexaad oo kaa soo dhisay maskaxda waaye sidaa darteed macallimiintu waxaan leenahay awaarkiinaan ma gudi karno awaarkiinaan waxaa ilaahay ka barinayaa jannatul firdowsa in ilaahay idinka badalo macallimiintu meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leeyahay maalin wacan waxaan idin leeyahay maalin weyn waxaan idin leeyahay macallimow meel kastoo aad joogtaan u sabra ubadka soomaaliyeed oo aad wax baraysaan waxaan doonayaa maadaama waqtigu uu aad u yar yahay macallimiinkana meesha ay fadhiyaan waxaa laga hilsaaray xafladani quruxda badan inaan furfuro xafladayni way noo furan tahay soo dhowaada salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala